haddaa gaalka dishaan ama dil geysataan ama miyid wareenka iska ilaaliya in qofka sankiyo dhagaha la googooyo wa khaatirkii baa la dhowraya sidoo kale gaalada dhaqankoodu waxa weeye wixii la arkaba in la baahiyo xaqiiq waxay ku leeyihiin waxaad aragtayba sheeg wuxuu doonayaba ha ahaado inagu saan uma dhaqmayno cawrada waa la iska ilaalinaya inaad sii dayso wixii eegmadiisu ay ka xaaraantay ama inaad imikaba la baahiyo aagga kalena laguma baahin karayo man satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama nabi maxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka qof astura maalinta qiyaamaha ilaahay baa astura marka cawrada iyo ceebaha ma baahinaysa qaarkood baa waxay gaadheen intay xaaskooda sawiraan inay yidhaahdaan waxaasaan kaa raba haddaad yeeli weydo facebookan kusoo dhigaya dabeetana ay waalatayba ama ehelkaagaan kuu sheegaya kutusaya aadaabta waxaa ka mid a inuu qofku u qiiroodo waktigiisa waktiga inuu ilaaliyo dad baa jira mudminiin la idhaahdo oo u xaraaraysan oo ku qaadirooda oo ku dul seexda goobaha iyagaa siday u dul fadhiyaan cudurra ku qaada marka aadaabtu waxa weeye qofku inuu saacadna inuu ka faa'iidaysto saacad shaqaysto saacad ehelka siiyo mas-uuliyad weyne halkan waxay ka saaran tahay aabbayaasha iyo hooyooyinka caalamkii hore hamoodina halkaasaa la isla marayaae oo hawadaasaa la soconayaao inantaadii iyo inankaagii maqsinkan waxay agtaada iyadoo joogta ama jooga waxay isag fadhiyaan ka adduunyada halkeeda dambe jooga ayay sarkayaan oo sheekaysanayaan marka qofku waa inuu waaci noqdaa waxaan la socdaa waraystaa ilmihiisu waxa uu ku jiro wuxuu wado wuxuu ku mashquulsan yahay si u jahayn kara dee ila nebigu wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof waliba waxbuu raacay oo waa la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha marka qof ka dhacsan oo qaafila oo sidii hore u dhaqmaya ha noqonine waa inaad hore u soo kacdaa oo waxaanaynu sheegaynaa waa wax waaqici ilmahaagu halkaa fadhiya ibtiloobi karaa oo lagaa qafaalan karaa marka waa inaad dabada haysataa adag socotaa jahaysaa aadaabta waxaa ka mid a qofku haddii uu niqaash gelayo ama fikrad diibanayo ama dood galayo waa siday daayartu isku dayaan intooda badan inay isu taagaane in uu mutasallix bilcilmi sharci marka dadka had iyo jeer kufriga ku baaqaya ama bidcada markuu la doodayo dee waa inuu cilmi u leeyahy haddii kale isagaa la duufsanaya hadduu doodo lagu soo xidho jawaab walba lagu xidho waxaa laga yaabaa in la ifxaamiyo la aamusiiyo kadibna isaga la duufsado marka waa inuu iska xidho kadibna yidhaahdaa arrintaa culimada aynu u bandhigaynaa aadaabtii waxaa ka mid a qofku marka uu halkaa ku jiro in hadalkiisu uu fiicnaado oo hadal macaan oo dadka quluubtooda uu kusoo qabanayo oo dabacsan oo aan lagaga didayn oon dagaal abuurayn inuu noqdo ilaa waa qof masaajidkeennan ka dhex kacay oo kale oo caytamay oo dhan walba shiiday dee markaa ummadduna way ku kacaysaa meeshana wuu kala dirayaa marka bartii la isugu yimi kol haddii ummad badan istaa isugu timi hadal wanaagsan oo jahayn kara oo kuwooda fitnada abuuraya iyo kuwa wax caayaya iyo kelmado wanaagsan iyo wacdi yar u jeediyo ayaa kala diri kara oo si wanaagsan u dejin karaya waxa habboon in la iska ilaaliyo almakru waalkhadiica wahuma fi nnaar waxyaabaa lagu naar mutaysanayo oo ah khiyaamada dadka qaarkood baa been soo daayoo yidhaahdaa hebel baa baahan oo aynu waxu ururinaynaaye halkaa ha loogu soo shubo isagu iska qaata muddo ku shaqaysanaya dad sidaa ku maxafsadaa jira oo qofkii wuxuu isku dayay intuu been iyo khiyaamo sheegay inuu halkaa dadkii maadaamuu kala durugsan yahay wax kaga urursado marka waa khiyaamo khatar badan qofka aadaabta waxaa ka mid a wixii uu baahinayay inuu isagu leeyahy haddii fikirkan ama cilmigan ama dadaalkan cid kale leedahayna inuu yidhaahdo cilmigaa iyo kelmaddaa iyo ammaanadaa waxaan ka soo sheegayaa hebel waxaan ka maqlay ama hebel waxaan ka soo gudbinayaa wixii fadliga ahlulfadliga waa inaad u qirto oo adigu aanad xadin oo aanad qarsanin halkaa marka aad ku jirto baraha bulshada la saaxiib ahla asalaax waataqwa dadka ilaahay uu raalliga ka yahay almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalib rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay qofku diinta saaxiibkiisuu ku sugan yahay qof waliba cidda uu la saaxiibayo ha ka fiirsado marka culimada iyo akhyaarta iyo waayeelka iyo dadka dhinacuna xigmadaha aad ka macaashayso kuwa inaad la saaxiibto oo aanad wakhtiga ku qaadanin dad bilaa macno wada
waxaad iska ilaalinaysaa sida dadka qaarkood u fikiraan tirada meeshiisa uu ku jiro sheer garaynaya ama saaxiibada la ah inay bataan ilaa qaarkood lacagba ku bixiyaan anigana ay camira intaasoo adduuna qaato sidaa ha u fikirin cadad badan ha ku xisaabtamine waxaad sheegaysaa wax wanaagsan oo dadka anfaca waa inuu noqdaa goobaha iyaga markuu qofku doonayo inuu wax ku qoro waqti uu cadhaysan yahay waxba yuu ku qorin haddaad cadhaysan tahay wixii aad qortay ama aad sheegtay ee lagaa duubay rikoorka galay goordhowaad ka murugoonaysa odhanaysa markaa maxaad hadalkaa u tiri maxaad sidaa u yeeshay marka waqti aad degan tahay oo waxa aad sheegayso aad qiyaasi karayso oo aad fahmi karayso waa inaad sheegtaa oo aad qortaa sidaa horeba aynu soo xusnay waxyaabaha la ilaalinayo waxa ka mid ah indhaha intaasoo adigoo sidaa u wado ku jira laga yaabo waxaa soo qaawan waxaa soo iswaxaynaya waa inay soo maraan qofku waa inaanu ishii la sii raacin laakiin uu iska baloogarayn karaa iska xidhi karaa ila ilaahay baa wuxuu qul lil mu'miniina yaghuddu min absaarihim nabi maxamed oo ragga waxaad ku tidhaahdaa ilaahay rumeeyay indhaha haysto xaaraanta ka haysta wa qul lil mu'minaati yaghdunna min absaarihin dumarkiina waxaa loo faray nabiga indhahooda xaaraanta ka haysteen xaaraantu xaaraanun maaha markuu life yahay wuxuu ka hortaagan marka uu meelaha ka baxayna de xalaal maaha mar walba waa xaaraan weey waxaad ogaanaysaa mar kastoo dadka kugu xidhan bataan mas'uuliyadaadii baa sii badatay iyo xilkii ku saarnaa hadday 10 qof ku dhageysanayaan iyo hadday 100 kun ku dhageysanayaan xilka ku saarani uu kala duwan yahay marna 10 baad sunaynaysa marna 100 kun baad sumaynaysa marna 10 baad saxaysa marna 100 kun baad saxaysa marka waa inaad u fiirsataa oo aad ku xisaabtantaa shaygaasi inuu kala mas'uuliyadaasi ay kala badan tahay waxyaabaha daayarta inuu aad ugu baraarujinayno inay ka feejignaadaan waxa kamid ah qariisada iyo hamada la kicinayo jacaylka wax la yiraahdo aad loo buunbuuniyo indhaha iyo dhagaha iyo afka iyo muuqaalkaba lagu isticmaalaa wadiga arkay hees yar oo maalmo dhaweyto Soomaalidu ay isku wareejinayaan mid Soomaali qaada lagu leeyahay 3 milyan oo qof baa daawaday 3 milyan oo qof waxa laga yaabaa hadii wacdi kasta la jeediyo 3 kun oo qof ama 30 kun oo qof inaanay ku soo ururin markaas lagu leeyahay 10 baa la kala qaatay dhinacii tuur oo intaas oo qof ku cawarmeen almuhim waxaynu uga jeednaa qofka bani aadamka waxyaabaha hubka ugu khatar badan ee shaydaanku ku isticmaalaa waa ka jinsiga iyo hamada marka hadii hablihi hamada lagu kiciyo inamadiina lagu kiciyo dad badan in aanay xaasasaysanin qaawanaantii la tusiyo waxa laga yaabaa inay xaraan ku dhacaan xaraanta ka tusiyo un baa dambigeeda leh marka ku xisaabtan shayga la yiraahdo hamada in la iska ilaaliyo kicinteeda wana waxyaabaha halkan lagu isticmaalo waxa u badan ee aad dhalinyaradu ay u xiiseeyaan way badan yihiin markaynu si kooban u dareerino fariimaha aynu dirayno dadka halka ku hawlan iyo waalidkooda iyo mas'uuliyiinta kuwaasa kamida waxaan rajaynayaa fariimaha iyo kuwa lamida cid qaadatay inay anfici doonto inaguna ajri aynu ka heli doonno insha Allah ta'ala اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه